waxa ugu horeeyaan mar walba la rabaa inaan isxasuusinana waa ilaahay azza wa jalla ilaahay aan iloobin ilaahay baa kule fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun xasuusta baa ilaahayna leeyahay aniguna waan xasuusanaya mahadnaqa baa ilaahayna leeyahay igu shukriya oo nicmadan hareerihiina aan dhigay intood fiirisaan inaan anigu inii nicmeeyo garta baa ilaahayna leeyahay hayga gaaloobin oo nicmadayda hayga daboolina baa ilaahayna leeyahay hadduu qofku shaakir noqoni waayana waddo kaluu qaadayaa qofku innaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafura baa ilaahay imaa qofku shaakir buu noqon shaakirku waa qofka muslimka ee qumman ee 24 saacadood u nool sida rabbigii uu jecel yahay ee aan u noolin sida nafsadiisu ay doonayso kaafirka maxaa lagu yaqaanaa kaafirku waa qofka shahawaadkiisa raaca weeyaan waa qofka ilaahay aanan garan kii abuurayna ma yaqaano ujeedadii loo abuurtayna ma yaqaano hadafkii laga lahaa ma yaqaano meeshuu u socdana ma yaqaano bal adduunyadan baa wuxuu arkaa inay tahay daartii xorriyadda dad badanna maanta waxaa laga dhaadhiciyey adduunkan xor baa tahay waxaad doonta samee laakiin shareecadda islaamku waxay ku leedahay xor ma tihid waxaad tahay addoon ilaahay ilaahayna waad u baahan tahay kama maarmi karayside ilaahay mar walba xasuusno oo ilaahay ha iloobin oo qalbigaaga ilaahay ku hay oo caafimaadka ilaaha ku siiye kugu deeqay ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu mahadi sidaa waxaad u noolaataa uu rabbiga uu rabee sida adigoo aad doonto marna ha u noolaan ilaahayna innaka u baahan oo dadkoo dhan hadday ilaahay caabudaan waxba ilaahay uma kordhinayaan hadday wada caasiyaanna ilaahay caza wajalla waxba kama dhimayaan waa qani isagaa ilaahay isku filan hadday cibaado noqotona malaa'ig waxa uu leeyahay leylan wa nahaaran ilaahay cibaadadiisa aan ka daalaynin oo shahawaadka innaka nagu abuuran iyo ka aan lagu abuuran oo tasbiixiya ilaahay taacaddiisa heegan u ah ayaa ilaahay leeyahay adigiyo anigoo bani aadamow shahawaadkeennu badan yahay oo weliba shaydaan inagu lifaaqan yahay ayaa haddana layna leeyahay ha raacine shayddaankiiyo shahawaadkiisa ha raacine amarka ilaahay raaca oo maaragtaane shareecadda raaca baa lagu leeyahay oo addoon ilaahay noqo addoon macnaheegu waxa weeyaan waa qofka siduu isagu rabo aanan u dhaqmine sida ilaahay uu ka rabo u dhaqmo berigii addoommaha la iibsan jiray ee la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa markaa wuxuu tegay meelihii dadka lagu iibinaya addoommaha addoon buu markaa soo gatay markuu meheradiisii uu la yimiday ayuu magaciisii weydiiyey wuxuu yidhi magaca baa lagu yidhaah wuxuu yidhi magacaad adigu ii bixisaa magacii noqonaya buu ku yidhi markaa buu ku yidhi dhar maxaa jeceshood xidhataa ii sheeg markaasuu yidhi dharkaad adigu ii xidho unbaa dhar ii noqonaya maanta laga bilaabaa markaasuu yidhi dharkeed jeceshood xidhataa raashinkeed jeceshood cuntaa ii sheeg wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad i siiso unbaa raashin ii noqonaya markaa ninkii maalqabeenkii hantiilihii wuxuu yidhi war bal ninkan fiiriya buu yidhi wixii anugu aan su'aal isaga weyddiiyeba isaguna anigu maaragtaane su'aasha jawaabteeda igu soo celinayaaye markaasuu ku yidhi war dhegayso adigu ikhtiyaar miyaanad lahayn buu ka yidhi ikhtiyaar miyaanad lahayn markaasuu yidhi addoon baan ahee addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu ka yidhi addoon macnaheegu waa sidaa addoon ikhtiyaar ma leh addoonka khiyaarka wuxuu ku socdaa sayidkiisa innaku ma dad waxaan nahay ilaahay addoommihiisiiya mise dad axraaroo xor baa tihiin layidhi baan nahay dad waxaan nahay la yidhi addoommo ilaahay baa tihiin addoon markaa macnaheegu waxay ka dhigan tahay sida rabbigii uu jecel yahay buu mar walba u socdaa ilaahay markaa muxuu inaga rabaa ilaahay waxuu inaga rabaa haween iyo ragba wuxuu inaga rabaa meel kastoo aan joogno inaan ilaahay kaga cabsoonno meel kastood joogto zaman kastoo aad joogtana ilaahay kaga baq laanna ilaahay tabaaraka wa tacaala wayna arkayaa wayna maqlayaa xasanulbasri raxmatullaahi calayh ardaydiisii qaar ka miduu la dardaarmayey waxa uu ku yidhi ha ku degmin buu yidhi meel fiican baan ku noolahay oo anu lumi maayo nebi aadam calayhi salaam jannadaa ilaahay geliyey jannada meel ka fiicani ma jirto laqiya maa laqiya buu yidhi jannada dhexdeeda nebi aadam wuxuu kula kulmay ayuu kula kulmay waa jannada dhexdeeda nebi aadam calayhi salaam ayaa lagu dhex ikhtibaaroo lagu yidhi fakulaa xayثu shi'tumaa walaa taqrabaa haadihi الshajara fatakuunaa min الظaalimiin
jannadii waa taase aadamow cuna oo cabba oo daaqa nicmaddeeda laakiin geedkaa ha u dhowaanina baa lagu yidhi haddaad geedkaa u dhowaataan kuwa daalimiintaad ka mid noqonaysaan baa ilaahay ku yidhi waa jannada dhexdeedii ayaa nebi aadam calayhi salaam lagu ikhtibaaray ikhtibaarkaana nebi aadam uu ku dhacay fa ukhrija min aljanna maalin jimcaana jannada laga soo daadejiyey adduunkan ayaa la keenay waxa liya waxaa adduunka ikhtibaar inagu socda innakana waxa uu ka soo bilaabmay waa aabbaheen aadam calayhi salaam markaa xasanulbasri ardaydiisii buu ku leeyahay haddaad isleedahay meel fiican baan joogaayo anigu lumi maayo meel fiicanna waa lagu lugmi karaayo ugu weeyaan oo nebi aadam calayhi salaam jannada dhexdeedaa lagu ikhtibaaray ikhtibaarkiina halkaasuu nebi aadam uu ku dhacay deedna jannadiina waa laga soo saaray hana is odhan buu ku yidhi anigu dad fiican baan la joogaayo lumi maayo oo dadkaan dhex joogaa waa dad muslimiina oo masaajiddii iyo culimmadii baan dhex joogaana ha ku degmin waayo abaa taalib iyo abulahab intuba nebi maxamed bay arkeen calayhi salaatu wassalaam munaafiqiintuna nebi maxamed gadaashiisay ku tukadeen haddana way lumeen oo waxaad ogaataa dariiqa xaqa way ka weecdeen oo ogow hana is odhan caabid baan ahoo cibaadadaydaa maqaam gaadhay oo anu halkaa ka soo dhici maayo ha is odhan ibliis samada buqcad ku taalla ma jirto ilaa meel kastoo ku taalla samada ibliis ilaahay uu ku ammaanay uuna ku xusay uuna ku caabuday haddana waa la ikhtibaaray deedna waxaa lagu yidhi fakhruj minhaa fa innaka rajiim wa inna calayka lacnatii ilaa yowmi addiin ka dhex bax baa lagu yidhi naxariistayda adigu mid adag ayaa tahay ilaa qiyaamahana lacnadaydii baa kugu dhacday baa ilaahay ku yidhi ha isdhihin aqoon baan leeyahay oo caalim baan ahay oo cilmi baan leehayoo maqaam baan gaadhayna ha is odhane ninkii la odhan jiray balcaan binu baacuuraa waa nin reer bani israa'iil ahaa ismullaahi alacdamka magaca weyne ilaahay lagu baryo ee ilaahay baryada uu ku aqbalu ninkaasi yaqaannay bal imaam qurtubi raximahullah wuxuu yidhi maqaam ninkaasi wuxuu gaadhay u dhowaasho uu rabbi u dhow yahay maqaam wuxuu ka gaadhay meel alliya meeshuu u jihaystuu daymoodaba waxa uu arki jiray carshiga ilaahay buu arki jiray baa layidhi falaqiya maa laqiya isaguna wuxuu la kulmay ayuu la kulmo waa la ibtileeyey oo isagana diintiisii dhannayd wuxuu ku beddeshay qabyaalad iyo raswo ayuu qatuu ku beddeshay diintiisii waa xasanulbasri raxmatullaahi calayh zamanka uu joogayna waa zamankii taabiciinta waa zamanka nebi maxamed uu yidhi khayru lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qarniyada qarnigaa aan joogaa ugu khayr badan uma qarnigan ku xigaa ugu khayr badan buu nebigu yidhi oo xagga khayriyadda ku sii xiga ardayda uu xasanulbasri uu la dardaarmaayo qarnigaa labaad bay joogeen oo ogaada innakana maanta zamankeenna ka warrama maanta aan joogno